بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأستاذ محمد خالد، جامعة برية أفريقيا. لكتشر كان waxa uu talagalay ardayda dhigata kulliyadda culuumta caafimaadka. waxaa sii wadnay casharadii ku saabsanaa introductionka microbiology-ga. waxaan hore usoo sheegnay introduction waa maxay microbiology, waxaan kasoo hadalnay waa maxay qeybaha u qeybsamo, waxaan kasoo hadalnay bacteria, waxaan kasoo hadalnay virus, waxaan kasoo hadalnay structuradooda iyo iyaga laftooda sida loo qeybiyo. lecturekan wuxuu ku saabsan yahay sterilization and disinfection. sterilizationka actually waxa weeyaan waa qaabkii, maadaama ilma aragtayga yaryar anagu aan u jeedin, waa in aan isku daynaa qaab aan iyaga kaga takhalusi karno, aan ku dili karno, iyo qaab aan iskaga fogeyn karno oo ka caagan microorganismskii noolayaasha waa inaan ka dhignaa. haddaba microorganismska can be found in everywhere. noolayaashan yaryariiska ilma aragtayga meel kasta bay joogi karaan, gacmahaaga, meesha seexanaysid, dharkaaga, kulli. in hospitals, in needles, cisbitaalada, irbadaha, qalabka. So there must be a way for getting rid of them. waa inuu jiraa system lagula dagaalamayo oo banaanka iyaga la geynayo. haddaba waa maxay sterilization? waxaa lagu qeexaa freeing of an article from all living organism. from a particle way halkan raali ahaada. from any particle kasta ayaa waxaa lagaga ceyrinayaa maxay? from all living organisms. noolayaasha oo dhan ayaa maxay meel kasta lagaga ceyrinayaa. disinfection waa maxay? this means to stop. it is done whenever we cannot do a sterilization. haddii aadan kaga takhalusi karin, waxaa samaynaysaa aaga ka ceyrinaysaa. it decreases the number of microorganisms. hoos buu usoo dhigaysaa noolayaashii, decreasing the chance of infection. haddii marka la yareeyo, dee waxaa imaanaysa maxay? microorganisms hal xab waxba kaama tarayso. cudurka marka chanceka aa cudur ku qaadi lahayd, waxaa dhici karta qaarkood inay 5,000 oo xab cudur ku qaadsiin karaan, qaarkood 10,000 markay isku gaaraan cudur ku qaadsiin karaan. marka haddii hal xab iyo laba xab noqoto oo aad loo yareeyana, cudur kuma qaadsiinayaan insha Allah. so it is partial remove of microorganisms. waa maxay? waa qaab lagu yareynayo iyagii. laakiin sterilization iyo disinfectionka labadaba waxaa loo sameeyaa isku si method. the difference in application this method is are like waxay kala duwan yihiin qaabka maxay loo isticmaalayo. okay, waxaa jira sterilization iyo disinfection qaab ah by heat, in aan kaga takhalusno ama aan aagii aan ku yareyno anagoo gubayna. filtration anagoo kala safaynayna. radiation anagoo shucaac ku samaynayna. iyo chemicals anagoo chemicals u adeegsanayna sida saabuun iyo waxaas oo dhan. haddaba midka heatka loo isticmaalo waa maxay? heatku actually laba qaybood buu qaybsamayaa. using heat, adoo haddaa heat isticmaalaysid, dry heat baa isticmaali karta oo ah inaad kulayl koronto ku samaysid, or moist heat inaad biyo ku karkarisid oo qoyan micnaha. the hot air oven, mashiinkan waxaa lagu isticmaalaa maxay? in lagula dagaalamo sterilization microorganismska yaryar. phone in operation rooms, cisbitaalada way taallaa, meelaha qalliinka iyo waxa lagu sameeya qalabyada dhan baa la gashtaa. it uses temperature of 170 degrees centigrade. temperature aad u badan bay isticmaashaa oo dry heat ah oo qalayl ah. temperaturekaas ay ku gubayso. panning, in la gubo sheegay oo dab caadi ah ku gubtid. using alcohol, this is done when no way for sterilization. kan waxaa lasoo qaataa suuf baa lasoo qaataa, kadibna alcohol baa lagula mariyaa, kadibna meeshii oo dhan ayaa maxay lagula gubaa. marka qaabkaas ayaa samayn kartaa. incineration waa marka waxaa loo sameeyaa god yar oo kale loo sameeyaa, halkaas ayaa lagu dhex gubaa. for removal of waste products and disposal materials, kuwa la tuuray. example, xubin oo kale ayaa qof laga soo gooyey ama ilmo yar oo dhintay ama waxaas oo dhan, waa inaad jermiskii oo dhan ka saartaa oo meel aad ku gubtaa. kadibna qaabkaas waa inaad kaga nadiifisaa wax dhintay oo kale, xubin dhimatay. flaming, inaad dab ku samaysid. sterilization of the loop used in culturing to get pure culture. marka la sameynayo cultureka bacteria la beeriyo oo kale, waxaa jira barrier oo sidii liifadii oo kale leh, kadibna qaabkaas oo lagu gubo cultureka birtiisa yar lagu sameeyo halka ilaa ay gududato. qaabkaas ayaa loogu hayaa. by filtration, the concept is to have a filter with pores smaller than the size of microorganism. kan waxaa la sameynayaa waa kala safaynaysaa, marka waxaa soo saaraysaa microorganismska kuwo shabaq ba u samaynaysaa, shabaq aad iyaga size-kooda uga yar, si markaas shabaqa iyaga u qabsado wixii kale oo nadiif ahna halkaas ay kugu soo baxaan.
The importance of filtration muhiim wuxuu ugu yahay some certain fluids needed can be affected by heat waxaad dhici karta marka qaarkood inaadan shay kasta aadan gubi karin saas daraadeed heat haddaa ku samaysidna in example serumka dhiiggii oo kale inactive kaa noqdo saas daraadeed wax ku samaynaysaa filtration ma ku samaynaysaa iyo dhiiggii ama dheecaanadii kala duwanaa mug iska gubaysid balse waa kala saarsaaraysaa adoo u isticmaalaya dubaalad oo kale ama shabaq. Second, filtration of water, which is used to examine of water only, not to sterilize. biyaha sometimes laftigooda wuxuu isticmaalaysaa inaad filtration ku samaysid saas daraadeed qaabkaas ayaad laftigooda bacteriada kaga dilaysaa. With radiation shucaac inaad kula dagaalantid. We use alpha or gamma radiation. Radiation affects the DNA of the microbes. Radiation wuxuu samaynayaa marka wuxuu dilayaa dhaxalsidihii ama DNA-dii microorganismka yar noolahan ilma aragtayga yarka ah. There is something we cannot heat it. waxaa dhici karta marka waxyaala qaarkood aan gubi karin and we cannot filter aan la filter gareyn karin. Maxaa ka mid ah plastics bacaha disposable materials they are sterilized by radiation kuwaas waxaa shucaac lagu sameeyaa. Sterilization by chemicals chemical anagoo adeegsanayna inaan wax ku nadiifino oo germiska aan kaga takhalusno. Either fluids or gases chemicals like formaldehyde chemicalka loo yaqaano anagoo maadadan chemicalka isticmaalayna glutaraldehyde ama gaseska loo yaqaano ethylene oxide. The mechanism used in sterilization by moist heat kaas waxaan kasoo hadalnay qaybo iskugu jira dry heatkii iyo filtrationkii waxaas oo dhan qaabka loo isticmaalo moist heatka qoyaanka ah autoclave ah kamid ah mashiinkan shaybaarada iyo baa laga helaa. One of the best ways of sterilization waa ugu fiican biyo ayaa lagu shubaa. The principle of autoclave is steam under pressure. biyihii ayaa uumiga ay sameynayaan qaabkaas ayuu ku nadiifinayaan. The temperature used generally is 121 degree in a pressure of 15 pounds. Then when it reaches 121 markay gaarto saacada fiirinaysaa waxa ku buuxinaysaa 121 degree markay 120 degree gaarto we leave item for 15 minutes waa sugaynaa haddana isla markii afka ka furtid waa sida digsiga bariiska lagu karsado oo kale oo pressure ku karka ah uu kugu qarxaya hadda hal markii furtid marka xoogaa sug ilaa hawada inta ka soo baxayso kadib markaas aad furaysaa. Disinfection waa qaab aan ku dilayn kaga takhalusayn laakiin aagii dhan kaga ceyriido bacteriadii. maxaan samayn karnaa by boiling heat anagoo biyo karkarina shaygii oo kale waxaan ku dhex ridaynaa birihii iyo waxaan rabnay waxaan ku dhex ridaynaa biyo dabkan saaran oo la karkarinayna. In many health centers we use boiling which use temperature below 100 degree. Temperature maxaa yeelay biyaha temperaturekooda oo boiling pointigooda ayaa wuxuu yahay 100 degree. With radiation shucaac anagoo ku samaynayna. Ultraviolet light qoraxdii reduce the number of microorganisms to the minimum oo kale subaxdii oo kale darabtid dharkaaga iyo shayga ku saxan banaanka qoraxda dhici kartaa si markaas microorganismska ilma aragtayga halkaas ay ku dhintaan. Disinfection by chemicals anagoo chemicals u isticmaalayna disinfection ku yareynayna. Actually the most disinfectant used are chemicals. Disinfectant wax lagu yareeyo waa qaabka lagu yareynayo microorganismski waa qaabka loo ugu fiican waa chemicalska iyadoo la isticmaalayo. There are many chemicals badan baa jira ama saabuuna kala duwan baa jira and use a daily routine life examples maalin kasta la isticmaalo. waxaa kamid ah alcoholka waa best disinfectant for human skin. jirkaaga marinaysaa exam haddaa cishtaal buuqatid wuxuu dhan gacmahaaga alcohol ku dhaq ama aad xarun caafimaad ka shaqaysid. waxaa kamid ah phenols sida waxaa kamid ah ditosha halogenes like iodine baa kamid ah good for skin nabar marka ku dhaco iodine taasaa marinaysaa but it gives color bay leedahay iodine colorkeeda waa taqaanaa waa tan nabraha la mariyo. Chlorine waa tan biyaha lagu shubo example biyihii markaad isticmaalaysid biyaha wax ku samaynaysaa chlorine baa ku daraysaa. Disinfect water and Clorox in kitchens suuliyaasha iyo jikooyinka waxaa ama wax ku dhaqanaysaa maadadan Cloroxka. Hydrogen peroxide use disinfectant injuries and ENT dhaawacyada iyo dhagaha iyo waxaas ku mariyaan. Soap in washing and any cleaning material saabuuntan waxa loo isticmaalaa in wax lagu dhaqo ama lagu nadiifiyo considered as disinfectant way laftigeeda. haddaba waa maxay waxyaalaha saameynta ku sameeya action of chemicalska inay shaqeeyaan waxyaalaha saameynta ku sameeya maxaa kamid ah concentration used by percentage. chemicalka percentagekiisa hadduu aad khafiif u yahay wax badan ma dilayo bacteria badan kama ceyrinayo marka wax u baahan tahay concentration ku habboon. Time of exposure waqtiga aad isticmaashay more time waa maxay haddaa waqti badan u daysid efficient disinfectant si fiican buu bacteriadii meesha kaga saaraysaa. Types and numbers of microorganisms waxay ku xiran tahay xitaa noocyada bacteriada iyo inta xaba ay tahay. haddii aad microorganism bacteria virus kulli haddii aad u badan yihiin waxaa dhici karta inaad tiro dose badan oo baahatid oo disinfectant ah. pH temperature laftigiisa temperature haddaa more acidic u isticmaashid
iyo temperature laftigiisa haddii uu yahay aad u sarreeya ama hooseeya laftigiisa ugu xiran tahay presence of organic material example haddii HIV dhiigga uu meesha ku jiro laftigiisa marka aad ba uga taxadaraysaa marka waxaan Virginia inay aad iyo aad ay fahanteen casharkaasna waa basic sterilization and disinfection aad iyo aad waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh